haddii aanad ku noolayn Ingiriiska ama aad ku hamiyeysa inaad tagto ila daawo muuqaalkan gaaban. Assalaamu calaykum dhammaantiin, soo dhawaada. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa muuqaal uu soo dhigay Cabdinaasir Ismaaciil oo ah aasaasaha Solar Group, kaasi oo kaga hadlayay nolosha UK maxay ugu adkaatay dadka Soomaalida ah. run ahaantii waxyaabaha uu kaga warramay waa wax xaqiiq ah oo ku salaysan waayo aragnimadii, maadaama uu in badan ku noolaa Ingiriiska. hase ahaatee waxa uu ka soo guuray 2019 sida uu sheegayba. muuqaalkan waxa uu soo dhigay horaantii sanad 2024. kelmadda uu yidhi ee aan la yaabay ayaa waxay ahayd qofka ku nool UK sanadka 2024 waa qof nasiib daran. sababtana muuqaalkan ayaad ka ogaani doontaa ila dhammaystiro. fiiro gaara, muuqaalkani kaama niyad jebinaya tegitaanka waddanka UK, balse wuxuu ku siinaya talo iyo sidii aad ugu noolaan lahayd nolol wanaagsan, sidoo kalena aad isaga ilaalin lahayd nolosha liidata. marka hore aan ku baro waddanka UK waa waddan weyn oo qani ah, waana 4 waddan oo midoobay: England, Scotland, Wales, North Ireland. ha u weynaato waddanka England, sidoo kalena uguna dad badan. waxaana uu sheegay in isbeddel ku yimiday waddankani 25 sano ee u dambeeyay, si gaar ahna u saameeyay dadka Soomaalida ah. waxa UK ku noolaan karaa qof haya shaqo professional ah ama wax bartay, laakiin haddii aad tahay geeto waxaa laga yaabaa inaanad horumar weyn aanad gaarin. waa sida uu hadalka u dhigay. geeto waxa uu ka wadaa waa dad meel wada degan, isku luuqad, isku dhaqan, isku diin ah, isagoo oo Soomaalida UK ku sheegaya dad geeto ah, sidoo kalena isku soo raadsada maqaaxiyaha fadhigooda inay waqti badan ku bixiyaan halkii ay ka baran lahaayeen luuqadda iyo shuruucda waddanka u yaala, si ay marka ay dhibaato qabsata ay ugu doodaan xuquuqdooda. waxaa kale oo sheegay in dadka inta badan waxbarta Ingiriiska inay yihiin hablahaasina ay gaareen heer ay shaqooyin fiican helaan, sida inay noqdaan dhakhaatiir, kalkaalisooyin, looyaro, ama inay dowladda meel ka galaan, taasi oo ay kala sinaanayaan kuwa Ingiriiska u dhashay. waxaa kale oo Cabdinaasir ka warramay in ay dad badan ay isdhigtaan oo aanay samaynin horumar wanaagsan, sababtuna ay tahay inay isku halaynayaan lacagta caydha la yidhaahdo ee la siiyo dadka aan shaqaynin, taasina uu qofku isku halaynayo. isku midna maaha qof inta uu waxbarto shahaadada koowaad iyo shahaadada labaad qaata, Ingiriisiga si fiican u barta, waddanka dhex gala oo la noolaanin deegaankii geetowga ahaa. ugu dambeyn, Cabdinaasir Ismaaciil wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaynu noqono dad dhaqankooda wanaagsan iyo diintooda ku dhegan, kana faa'iidaysta waqtigooda. waxaa kale oo kula dardaarmaya dadyoga ku nool qurbaha sida UK iyo wadamada kaleba inay ubadkooda iyo naftoodaba kula dadaalaan waxbarashada iyo horumarka dhinac walba, sidoo kalena inay ka dadaal bataan dadyoga kula nool waddankaasi